in badan oo ka mid ah gobollada dalkani Britain ayaa waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay baraf xoog leh oo ka da-ay gaar ahaan gobolka Wales iyo England ayaa saameynta ugu badan uu barafkani ku yeeshay. Waddankani Britain ayaa la joojiyey qaar ka mid ah diyaaradihii ka duuli lahaa kadib markii barafkan uu saameyn ku yeeshay airportyada ugu waaweyn ee dalkani sida Heathrow International Airport, Luton, Manchester iyo garoonka Birmingham. isla markaana hay-adda saadaasha hawada ayaa waxay ka digtay in ay suurtagal tahay in uu barafkan saameyn xoogan sii yeesho isla markaana soo xoogaysto saacadaha soo socdo. telefishinka caalamiga ee Home Cable ayaa waxa uu fursad siiyey qaar ka mid ah daawadayaasha telefishinka oo ku sugan magaalada London si ay uga hadlaan dareenkooda ku aadan barafkani xoogan ee ka da-ay guud ahaan dalka Britain. 10 December 2017 waa maalinta ugu qabow badan cimilada UK waxa da-ay waa ujeedaan baraf. maanta shaqadii waxa waa shaqaysan weynay maanta oo kale waxa hadda searchku wuxuu marayaa 4 point man la aadi karo wadooyinkii oo dhan baa xiran dhulkii waa baraf yaalo waxaan ka baqayaa baabuurta inaan ka daba tago ma fahanti marka sidaa daraadeed waxay noqotay inaan baabuurta iska baakin gareeno oo aan iska nasano waayo inta wax raadinayso qasaare kale inuu ku imaado laga yaabaa. والله عبدي وهدان كاغا ورمو maanta dadka waa soo bixi la yihiin barafka dhacay awgeed baabuurtii dadka dhaxda taagan yihiin experience weyn uma leeyin dadkii noo soo bixi lahaa waxa naga adeegan lahaana maanta guriga dhax fadhiyaan wax kala socda ma leh takaasidii masaakiinta Soomaalida oo ninka odaga xataa ugu horeey hadda baabuurka waa kan hadda soo parking gareey marka baraf aanan experience u leeyna dhacay. bismillaah warniyo maanta waxa jira xaalad aan marna waxa lagu seexan baynu ku soo toosnay baraf baa da'ayo ilaa iyo West Midland waxa laga sheegayaa waxaan caadi ahayn marka dadka waxaan uga digayaa driverska ah shaqaysta shaqooyinka meelaha fog u aada intaba waxaan uga digayaa in ay si taxaddar leh ay u socdaan haddii ay dhacdaba inay aadaan inkastoo aan jeclaan lahaa inay guryahooda maanta ay ku nastaan anigu waxaan ka mid ahay dadka meelahan degan dad badan waxaan arkay baabuur badan oo hadda crash samaysay baan arkay isku dhacday shilalku waa badan yihiin anu laftirkay waa try gray inaan baabuurkayga la soo baxo aan soo aado magaalada waxaan isleeyahay ma sii socon karto in aan sii isticmaalo baabuurkayga marka waxaan uga digayaa saaxiibada dariska dadka Soomaalida ee ku nool Great Britain meel walba ay kaga nool yihiin waxaan aad uga digayaa inay maanta ay mataqaanay taxaddar dheer ay sameeyeen. maanta baraf saa'id ayaa noo da'ayo marka customerkeenu way jiifaan wallahi barafku waa maanta waa saa'id London waxa waaye baabuurtii dadkii waa la socon la'yahay marka maanta waxa waaye maalin aad u qabow aad iyo aad u qabow waaye. Cabdi Fataax Ali Shirwac telefishinka caalamiga Home Cable London.